وحوي برنامج كاني قبر يهي أما هويني يهي هبين دنبه أما مالين دنبه أما ساعة دنبه أما سنة دنبه أما وقت كلابا ها اسويدين قضب كأه ninkaygu inuu jecel yahay in kala maxaan ku kala gartaa halkaas iska dhig waxba maalin la bartaa waana laga gudbaayo nolosha kale loo gudbaayo meelaha taagnaana ka gudub waxyaalaha kale ee qoyskaada iyo bulshadaada iyo naftaada iyo noloshaada khuseeyay raadi kan iyo kuwa badan oo mari doona ka gudub markasto aynu marnaba ha soo celcelin markaas aan fiiriyay fariimo badan tira badan meelo badan iga soo gaarayaan arkay wuxuu noqday barnaamijkan anigu xaqiiqatan barnaamij kale ayaa iga horeeyay soo waday walidaalika markii dadku su'aalihiisu bateen baa soo hormariyay marka habeen dambe saacad dambe isku soo qaaday ninkaygu muxuu ugu jecel yahay ku kartaa hadda garo 5 qodob ayaan ku ishaaraya 5 qodob haddaad ogaatid waxaad ka jaahil baxaysaa qodobkaas ninkaygu maxaan ku wartaa inuu jecel yahay 5 saddex baa si asaasiyas oo muhiima saddex baa muhiima 5 tan waa 5 qodob 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 5 qodob waxaad ku kala garanaysaa jacaylka ninkaada iyo benta riwaayada oo ku dhisay walaw ninkaada xataa isu ahaanay midka ku shukaansada 5 ku garanaysaa laakiin saddexda si muhiimka ba ku sii garan oo ay ku sii sheegay si toos ah 5 dhageysa marka qodobka ugu horeeya waxa weeye ilaahay khayrku uma waaye sirta uu ku dhiibanayo hadba tabartay la ag tahay waa ku garanaysaa ninkaada jacaylkiisa iyo jacayl la'aantiisa si fiican ay dhageysta ninkaada inuu ku jecel yahay iyo in kale waxa ku kala garanaysaa waxa kamida sirta uu ku dhiibanayo intay la ag tahay bal fiiri mid weynba ma mid yarba jacaylkaada halkaas ku jira dad baa laga yaabaa qaarkood markaynu ka waramayno hawlahan iyo jacaylkan inay yiraahdaan oo hadda waxa jacayl adeer macana ku sheegay jacaylku waa nolosha waana sirta nolosha aad ku nooshahay haddaadan fahmin taasna noloshaadi kamaada faa'iideysan aniga sidaa ku dhahay xitaa iska daa nolosha kale diintaada jacayla ilaahay haddaadan jacayl u caabudin iyo rabitaan cibaadadaada waxba kuma rabayo istususka iyo mid khasabka waxba kuma falay ilaahay habaan mansuuran buu ka dhigaya jacaylka xitaa diintaada ku dhisan حتى الله وحكوا لي مركز الرومين يصير خصم ما تشرو لا إكراه في الدين لا يسكو ما خص بيو تعيل وين كنت ما ضوحا تعيل إلهي وحكوا لي يقول إن كنتم تحبون الله هذا إلهي تعيشهين فاتبعوني النبي محمد راع هذا تعيشهين بالقوها القبصة في رسول تعيل هو النلش والدين وعباده ووحولبا والنلش وحكوها جلها تعيلكو حقه كاحقة أو حقه أو وحكستوه هي معنى كستون اللي هي فسر كستا يا معنين كستنا وكحل ديريا وكبلارية horta jacayl halka dhig in been laga bixiyo inaan sidii loogu talagalay looga soo bixin dadka u taala laakiin shaygan shay jira weeye noloshana jiritaankeeda asaas u ah ama adinku inaad ku qaraabataan been ka sheegtaan adinka idin taala diinta ilaahay marka been ka sheegtaan ilaahay waa idin cadaabaya laakiin diinta ilaahay cadaabiyo waxaan ma haysto qodobka koobaad marka waxa weeye in aad ogaatid sirta ninkaada ku siinayo allah ku dhaartay gabdhow raggo ninka ay jecel yihiin ama qofkaani qofku jecel yahay sirtiisa laga helaa qof hadaa doonaysid inaad ogaatid sirtiisa qofka uu jecel yahay ka raadi asaga ku haya ولذلك الإسلام كحكوا ليه سرت لبضة إسقابة كده حيث مدنا متك كلا يوسف فافين ونين كلا يسرق كلا وغشة كيسان قويس كيس سرتيسا هو يريدون الصدق وكلا ولو حدين نقطة هاس بقدر دقدر بتدي وممنوع وانا ملعون نينك سرت حاس كيس كشة كيا وانا مدنا على ذن هوين إذا كشة كيس نينك هذا سرتي صوصي سرت وكل ليبنا أيه كفيري تعيلك هذا يصير سرتي وحبك ودي بينين بقى قضب كسوا كداية هل كاس اللقامة شعلا لأن محيا وحى أنه آمن سنة إن نوح جسمان وحنودي بنا قفك كلسونية تعيل كأجناي صندوق النوع أن ودي بنا أن كوكلسون هاي هذا مرك حاس كذا نين يهو
ama gabar yahay ninkaadu kaala warwareegaya sirihiisa kala duwan oo noloshaasi caadiga ee routiinka oo kaliya ah oo rag iyo dumarka isqaba ka dhaxeeya maanta jirta ay ka dhaxayso salaaman sirtiisa fiiri marka imisu sir ku dhiibtaa muxuu kaaga sheekayaa noloshiisa tan soo socda tuu ku jiro wax loo soo sheegay ku sheego qoyska ku saabsan xaaskiisa wax laga sheegay oo loo sheegay miya jiro oo yiraahdo xaaskayga waxa laga sheegay xaasidiin hadii jiraan u sheegay yaani wararka soo gaarayo qoyskiisa ku saabsan naftiisa quseeya danihiisa mustaqbalada qoyskiisa quseeya haduu soo kula wadaagayn oo soo kula charge gareynayn muxuu ku yaalaa meesha allah danaha bas oo khaadimada u tahay mooyaan wax kale miya sirtiisa meel kale u gashada saxaabtiisa u dhiibtaa ninka shaqadiihin buu la dhiibtaa hawlaha ka wilaada laakiin hadda u tahay haweenay sirta u ilaalisa hadda wuxuu leeyahay wariya sheekadaas iyo sirtaasi xaaskayga ka raadiye wuxuu ka dhigtay maradiisa uu qabo laana allah ku sifeeyay hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna dumaro iyo ragga isqabo dharba sutiin xaaskaadu waa dharkaadi ninkaadu waa dharkaadi ma ciyaarayo waa isqabanayo waa iskuursanayo intaas laga bixiyo aroos baa layto waa dharkaad ka maaranta dharku wuxuu ka turjumaa akhlaaqda dharku wuxuu ka turjumaa dhowrsanaanta dharku wuxuu ka turjumaa toosnaanta idan xaaskaadu waa akhlaaqdaada oo waa dhowrsanaantaada oo waa shakhsiyadaada oo waa dadnimadaada haweenayahay adna waa sidoo kale idan saa wayna u fahanaa meesha waa la isguursaday waa la isfuulay waa waxba la soo dhalaa meesha ma taal waa ka xeel dheerta waa nolol hal noqotay way sirta waa ku ogaanaysaa intuu sir hadda ku dhiibanayo waxa ku kala ogaanaysaa ninkani intuu ku jiro jacaylkiisa qodobka kale waxa weeye haduusan ku dareensiin kamaaran oo ka maarmo annagu rag hadaynu nahay haweenayda markaan nacani rabno inaynu jiidno bahdilno waxaynu dareensiinaa inaynu ka maaranno nanagu waa badan yihiin adigoo kaliya ma tihid okay haye haddaan guursanaa ilaahay baa baneeyay 4-3-2 sheekooyinka noocaas hadduu ku keeno wuxuu rabaa qalbigaada inuu moraalka ka dilo qodobkani marka waxa weeye hadduusan ninkaani ku dareensiin kamaaran oo adiga ka maarmo wuu ku jecel yahay hadduusan ku dareensiin bal wuxuu ku dareensiinaa inuusan ka maarmin noloshiisa tahay farxadiisa tahay jacaylkiisa tahay rabitaankiisa tahay shucuurtiisa tahay buku dareensiina kan ku jecelayn markuu danta rabana waa diyaar waa carabku laalaadi marka kalena wuxuu rabo sameyn shukaansiga telefoonka maxaa ka galay cid aan la sheekeysanayo ayuu ku leeyahay macna wuxuu diyaar u yahay qalbigaada inuu jabiyo kan aan ku jecelayn kan ku jecel marna ku dareensiin ma inuu ka maarmo habarteeda ka tahay wuxuu ku leeyahay kaama maarmo la'aanta waa abaar laakiin oo run ah ma ahan mid ciyaalka caafada meelaha la'aanta waa abaar yarta lagu soo jeedan rabo buucda laga sameeyo ma ahantaas tan waa mid xaqiiqo ah oo run ah oo waaqacna ka jirta qoyskana ka muuqata haweeneyduna aaminayso taasi waa mid waxaan ku jirnaa sidaad ku ogaan kartid ama gabadhu siday ku ogaan karto ninkeedu inuu jecel yahay in kale 5 qodob baan dhahnay oo muhiim ah waxa soo muhiimsan waa 3 labadaasi waa soo ogaanay 3 muhiimka waa kuwana marka 3 muhiimka waa kuwana labaan soo ogaanay 3 muhiim ah hartay 3daana ugu khatarsan xitaa labadaas haday xoogaa wax si ka yihiin wala dul qaadan karaa haday 3daan haweeneedu hayso labadaas xataa waa un 3daan ay qurxinayaan mooyaane asalku waa 3daan dhaqan haduu ku hayo ha iska sii day ha iska dayicin ha iska fasixin ha isku khasaarin isfahan qiimaha ku ag fadhiye dadnimadaadii baad haysataa quruxdaadi ninka ku tusilaad haysataa adduunka midkii aakhira laga dooran lahayd haysataa xaqiiqatan 3daan haduu ku hayo way labadaas haduu hayo sidii la rabo waa kaamil soo salaadu sunna ma lahan waajibna ma aha waajibka hadan tukado ma sunna waajib maya ma salaad kale waajib laga laakiin waajib hadan tukado sunnadana raacsiiso khayr ma aha ii batay kan marka 3daan waa waajib labada isqaba 3daan inay soo ilaaliyaan waa waajib labada kalena ama labada qodob aynu soo ishaarnayna waa sunna waa kab 3daan ay qurxinayaan marka 3da muhiimka waa kuwana 3da muhiimka maxaa ugu horeeyay ninkaada adoo caraysan oo xanaaqsan haduu seexdo hurdadana u baxdo iskaga hay caawin iska qorinaya dan kaamala may joogtaa mise waa jirta laakiin haduu leeyahay maya waxba dhadhamin maya ilaa aad raali noqoto dhoola cadeys
وأن حلالة ابن حلال نينك كان وحو رادين يا رالي قلين تحاسكي سيين رالي كالنقطة لكن اسدوليني استوستوسيو قيمه سينو كتنا سلمك هالينو تعايل درتيس أيوحان الصمين يا رالي قلين تيدا رادين يا حاسك هذا هداد كسيحة أيضو حناقسا ومصيبه حديث بينهم مقلنا رجل وحفظ سيه قيل شرهود ويقانا الله مستعان وحويه هوينيدو هدي أي بريضه واجو بريو من كيدنا كحناق سيه هاي ملائكة نعرضه ماشي دون تباكو أتكيسه أينهم مقلنا ما أنتين كان قارئ كحية كان وذات كان سياسي حديث كوينهم مقلنا لكن دنا عكلا أبير تعيل بينه كور رمينا نرى الإسقيمية كور رمينا نرى الإسفهمان كور رمينا نرى التحدرات بينه كور رمينا هدو نينكادو سيحنا يا أدو حناقسن إسقالي عاور رالكو أهين وحا سعوده هدو إسكا سيحنا إسكا قورونيو أدام أتربتد حتى إنا درنسيسيد مركا قاركوت ساوچ عشا يسودو كاغا بطري لو يهي wax daardaarayso wax sameynayso oo san waxaasi dan kala hayn waa inaan jecelayn haduu jecel yahay maya raalinimadeedu raadinay marka haddaad aragtay ninkaadu inuu ku raali gelinayo habeenkii haddaad xanaaqdid una seexanayn biyana uu afka saarayn illa adiga ku raali geliyo mooyaane waa nin adiga ku jecel nin adiga qiimahaada dareemiyo way nid waxaad ugu fadhidid og way nin waxa weeye aan doonayn caalamka kale inuu kugu doorsado أما هداد عريسنتا يا هداد فرحسنتا هاي يا هداد غفورك توريسي يا هداد سي جديد يا هداد عنتدا دادادي سيدي يا هداد عروتا هراتي سيدي هذا يكوتال هدوسو كجعلين لكن هدوك جعل ياهي ما يكليه ما يا السمين وحاسي محاسبه بي انا حلينايه macnaha waa dhakhtarkaadi way qodobka afraad qodobadana kamida kan labaadna ah kuwa ugu muhiimka waa xiisaha gaarka way waa ku xiisay ceeb ma ahan dhalinyartu haday dhahaan waan u xiisay ceeb ma ahan waa jacayl waxa la jecel yahay loo xiisaa waxaan la jeclayn baa laga xiisaa oo laga nistaa akku ya ayada akku ya asaga in kala la kulmeel dan la ka turbal yiraahdaa qofkaan la jeclayn marka laga tago laakiin haduu jecel yahay xitaa markuu shaqada jiro soo waa Allah ku xiisay billah hatta haday dalxiis tagaan ay soo adeegtaan soo noqdaan tusaale oo kale inda shareer qabto laga yaabo inda shareerka intuu ka qaado saa u fiiriyo yiraahdo wallahi bilaa waa ku xiis laakiin haduu inay si jeedin soo jeedo kala garanay waa mushkilad way xiisaha gaarka waa muhiim ninkaadu haduu ku dareensiinayo inuu ku xiisayo waa ku jecel yahay haddaan la isku xiisayn maxaa la isku hayaa bari sheegaadinku ila nolol in la isla qaato halka loo yimide maxaa la qabanaya haddaan la isku xiisin maxaan wajigaada nuuraya u xiisay hadalkaadii baan u xiisay garab fadhigaadii baan u xiisay cuntadaadii siinisaan u xiisay shaah bal ii kare shaahadaan u xiisay galabtee aynu yiraahdo ninka ku jecel ninka kala maya bal waxa laga yaabaa kan ku jecelayn cuntadaada caayo nanaga tag bu leeyahay waxaan maxay wada cunto meehe inuu ku yiraahdo laga yaabo naya ujeedadu ma ahan maalin kasta inuu ku yiraahdo ku xiis adiga laftarkaada xabaasi hasiye balaari maalin kasta inuu ku yiraahdo ayuu ku xiis waa ku xiis ma ujeedo waxaynu ka warnaa inta waa la wada noolyahay waxyaala iimaanaya waxba dhacdhacaya laakiin waa in laga dareemaa xiisaha inuu xiiso qabo laakiin adigu ha u fahmin marka inuu ku yiraahdo galab kasta iyo saacad walba iyo maalin walba habeen kasta waa ku xiis eraygaaba markaasi la laboonayo markaas oo lagu xaraaraya looba baahna taas isbuucii 3 jeer 2 jeer nolosha la isku dhaxwado mar danaha dadka iyo qoyska lagu mashquulo marna la isku mashquulo waka saacatu wa saaca rasuulkii saacadna cibaadadaada iyo noloshaada ku khaaska wado saacadna adduunyadaada ka shaqeyso saas way macnaha ee mar walba la is agtaagnaanaya waa ku xiisay hamooda uu sayn laga wado ee waxaynu ka waramayna xiise waa inuu jira cuntadaadu nacaya jiifkeedu nacaya soo hoyodkeedu nacaya duu soo xiisay haduu soo xiisayna de macnaheedu ma jecla haduu jecel yahay oo xiisay laha laga yaabo gabdha iyo caruur ay u haysay inuu ku ilaalinayo kaliya oo iska hay meherka iskaga xirantahay waraaqda qodobka ugu dambeeyo muhiimka waxa weeye muhiimad siin halkaana lagu baabay xiisa aan muhiimad lahayn wax ma taro waa badar bilaa cusba ah waa ku xiisay inta la iska yiraahdo gabadha markii loo yimaado waa ku xiisay run qaadato kadibna laga sii jeesto bahdilaad lagu wado oo muhiimad aan la siinay muhiimad
xiisuhu muhiimadu waa inuu wataa muhiimadu waa maxay xaaladaada waa inuu la socdaa wajigaada maanta ma cajibeen maxaa kugu dhacay qoftaydii waa inuu ku yiraahdaa wax ma cuntay xanuun ma ku haya kaala ku soo daaweeyay daawadii ma cuntay daawo qaadanayso xaalada isku ogeydeen ma samaysay ma noloshaada waa inuu la socdaa wax ka weydiina dhakhtarkaadi weeyaan leeyahay soo moogid waa dhakhtarkaadi bukaan socod hadaad u tahay oo xoogaa dhibaato ay jirto wuu dareemi karaa marka waa inuu ku weydiiyaa maxaa jira maanta wajigaada uma bogin maanta waxba qasane ma ii sheegtay qoftaydii maanta yani waa inuu sheegaa laakiin meeshaan in la soo fadhiyo waan ku xiiso oo kaliya oo san muhiimad siinay wax ma taala dhadhan ma laha noloshaas bahdilaad way muhiimad siin la'aantu waa bahdilaad way bahdilaaduna waa qubuurta haweenka lagu aaso iyagoo nool ana idin sheegay oo muhiimad la siin oo inay jirtay iyo inay joogtaan la kala garanay oo uu sfiirinay oo hadalkeeda xiisaynay oo iska aamusan yahay oo iska sii jeedo telefoon ku mashquulsan yahay wax kale raadinayo 24 saac oo ka mashquulsan yahay ku xiisa bas la iska leeyahay wax tari meekaas xiisa waxa weeye baarinimona waa maxay muhiimad siin way oo ninkaada ku siiyo xaaskaada siisi dadkan iska ma soo jiidayo wallaah adagooda qoslayaan noloshan ku faraxsan baa soo gashay farxadda qurxiya xiisaha baarinimada muhiimad siinta ah xaaladeeda lala socdo dhinac walba kuwaasi waa qodobada asaasiga ah ee qof kaani inuu ku jecel yahay tusaya intaan hadii la waayo calaamadahan hadii la waayo kaliya waxa tahay gabar yahay cad hiliba oo guriga dhexdiisa iska yaalo cad hiliba oo guriga dhexdiisa yaala marka loo baahda la ka bada waa la ruqsadaa waana laga tagaa cad hiliba tahay bas hadii inta la waayo waxa tahay shaqaalihii guriga oo kaliya qaadimad baa tahay bas intaas aata jacayl ma jiro muhiimad siin ma jirto waa lagu kala tixireel kala guura la maraya adinkuna rago waxaan idin leeyahay dumarkiina ha ka dhiginina kuwa ayagu sababa inay ka cararaan in badan oo rag waxay ka cabarayaan xaasaskiiba nagu amar taagleeyay naga sii jeeda amarkii qaadan karila maya mushkiladu ayada ma ahanada abuuray haweenayda ku jecel haday muhiimad ka weydo iyo baarinimo iyo xiiso mushkilad bay noloshaada ku abuurtaa ayada keenta mushkilada hadaa fahmi weydid ifaham bay ku leedahay wariya halkaana jooga qof baana haya idareen هسي جيسنا سو جيسو بيكون لهذا هاسننا لذلك القرآن الكريم وحد أركيسا إنه لهي كتل ماما يدمر كدمان إنه يهين بير وبير انتي نبضان واحد مقاشين دمر هو ورشد بالشدة وهو هذا التقانن ها هذا ولا لول كان إلا بيران أيو بدرك أما قدارتك للدوان لغو بيران أيو أما ورشدان وحلقة صوصاري هدان للدريالين ما بيرتنا وحصو صاريس مسوشدنا وحصو صاريس مايا والله ورابيا مر والبا والله جور قبا ورابها يبقى بحالة شرنا يقدرتها لقى عليا ورديا الله سميا حيدان بالله سميا والله فلا وحاسي اللقوف الشيء بيرت أياك صوب حي هذا القرنية دبر كذا مركح حكوا بيرتان بتك قرنيسان عذاب يجحيمي بهدلات هذا تكون بيرتان عذاب يجحيمات كهريسان مركا أنا جانا وحبب بيران maxaan wax goosana moomana beerare hadaad qiimo siisaan oo aad ogaataan inay nolosha tahay oo qiimo leeyihiin qiimo idin siinaya laakiin hadaad tiraahdo naag weeye wax ma tarta weeye fikirkeeda iyo aqligeeda lama qaato wax ay soo kordhisay ma jirto waa un mar ay nuujinaysay mar laga dhalay caruur maya haween wax ka qaalisan ma jiro adiga ka qaalisan yihiin qofka sida dhahayo aad baanan u amaanaya ruux walba rag iyo dumar adduunyadiisana dhacsanaya آخرتي سنة دعسانية دينتي سكودكن الدنيا دي سكودكن الدنيا أن دين لها خير ملها دين كلية وأن الدنيا لها هنا مشاقين بل دين تقول لها الدنيا هذا كفايد عرسو ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيب كذا الدنيا كهل مامي عرسو هرتشد وحبرو نغر نقو خطر نقو عبادة هذا إله هذا يا أسطرك يا خيرك يا حشوتك يا برك هذا يا حقوق الله إلالينا إلالي كاسا إنسان مؤمن إلهي الرسول في سر لكيهن أبن قنيسة كليا نوحنا عقوشة إنه إفنان نورينه بارك الله